waxaan idin kala hadlaynaa mowjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar Facebook iyo internetka oo ciwaankeenu uu yahay bbcsomali.com. kulan wanaagsan sidaad u dhantihiinba Afrikada bari saacadu waa 2 duhurnimo oo gow ah barnaamijka qodobadan idinkugu hayana waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee shirka madaxda Soomaalida ee Muqdisho ka socda iyo arrimaha la isku hayo waxay warar ku saabsan Carabta iyo Israa'iil xiriirkooda cusub iyo sida warkaasi loo hadalhayo Liibiya xukuumadda uu taageero General Khalifa Haftar oo sheegaysa inay iscasilayso ciyaarihi ayaa sidoo kale maqli doontaan Britain maanta waxa laga bilaabayaa amarro cusub oo ah 6 qof ka badan inaysan hal meel isugu iman karin haddaba Soomaalida qasaaro noocee ah ayaa amurtan ka soo gaari kara gaar ahaan kuwa maqaayadaha London ku haysta xaflada qaban jirnay every 2 to 3 days xaflada qaban jirnay xafladaasna maaragtay dadkii hadaan lahayn ma iman kartaan dilaaxa mudaysanaysan dadku way baqayaan marka taas markay dadka saas u yaraanayaan barnaamijkan waxa soo saaray Maxamed Cabdi Sheekh Ali aniguna waxaan ahay Cabdirasaaq Catoosh bas marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka Bashiir Maxamed Caato ayaa inoo haya mahadsanid Cabdirasaaq حزب الحاكم كودنك جبان ayaa madaxa golaha wasiirada ee wadankaasi iyo shiida ee suuga wuxuu sheegay inuu noqdo hogaamiyaha cusub ee bedel doona ra'iisul wasaarihii wadankaasi Shinzo Abe. Ra'iisul wasaare Abe ayaa xilka isaga casilay sabab caafimaad awgood. Mr. Suga ayaa sheegay inuu si ambaqaadi doono siyaasadihii uu dalkaasi ku maamulayay Abe waxaan xilka loo dhiibay ee ra'iisul wasaarenimo ansixin doona baarlamaanka wadanka Jabaan. madaxweynaha wadanka Belarus Lukashenko ayaa gaaray dalka Ruushka halkaasi oo kulamo kula leeyahay dhigiisa wadankaasi Vladimir Putin oo hadalladii ugu horeeyay ee foolka fool ay dhexmar labada dhinac tan iyo markii ay rabshadaha ka bilowdaan wadankaasi Belarus hogaamiyaha Ruushka ayaa sheegay in dalkiisa uu heegan buux ugu jiro sidii uu soo fargelin lahaa xiisadda kaaloosan wadanka Belarus مسؤولينta caasimada dalka Indonesia ee Jakarta ayaa magaaladaasi ku soo rogay talaabooyin cusub oo lagu hortagay faafidda fayraska corona. Iskoolada iyo goobaha loo tamashlay ayaa la amray in la xiro muddo 2 toddobaad ah. Dalka Indonesia waxa muddooyinkii dambe sare u kacay tirada kiisaska corona ee dadka la helayo waxaana dawladdu ay sheegtay in talaabooyinka haatan ay qaadaysay iyo kuwa lagu hortagay faafidda cudurka. ودمنا قدم maamulka kubadda cagta ee dalka Iran waxay sheegeen in ruqsadii ay u haysteen baahinta ciyaaraha horyaalka Aasiya televisionada laga xanibay oo ay joojisay guddiga maamulka ciyaarahaasi xukuumadda Tehran ayaa arintan u sababaysay cunaqabateynta caalamiga ah ee saaran wadanka Tehran waa wadanka Iran shirkado badan oo caalami ah ayaa hakiyay la macaamilka dhigooda wadanka Iran kadib markii Mareykanka cunaqabateyn ku soo rogay wadanka Iran oo isku hayaan arrimo ay kamid yihiin barnaamijkeeda nukleerka warkii caalamkana waa nageynta Cabdirasaaq Bashiir aad baad u mahadsantahay